السلام عليكم أصحابتي ما إذن وذا السلام دمانتين marka weekend hadda lagu jiro waxaa la dhahaa apprenticeship week marka dhinaca kale idin jeedinaya si aad u aragtaan iyo maxaa xisooyinka iyo shaqooyinka aan ka hadlayo dhanba sidaa u aragtaanba waxaa la dhahaa National Apprenticeship Week marka wuxuu bilowday maanta isniinta oo bisha 9 ay tahay wuxuu ku egyahay 15ka 2026 hadda sidaa u aragtaanba meesha ugu koreysa ma aragtaan meeshaasito dowladda waxa dhan ay ka socdaan markaad aragtid baajkaas yar aad aragto waxaa waaye meel dowladda ka socoto waaye ayay muxuu ahaay meeshanaytood hadda aad aragtaan waxa ku qoran waa aragtaan apprenticeship webinar Stowe Academy and the Royal Wolverhampton NHS Trust marka kuwaas oo kale kan oo kale waxaa waaye virtual waaye ma ahan meel oo aad tegayso no location specified marka insha Allah waxaan rajeynayaa kulli markaan hadda idin tuso siyaabaha ku qoran kaas ka gudub mid oo aan taabtay waa qoraalka badan soo baxay kulligood waad aragtaan siday u wada qoran yihiin insha Allah marka ilmo waxa jiraan aanan ogeyn waxay rabaan inay qabtaan ilmo maahan cunuga GCSE markuu dhameeyay waa marka aad geyn karto waxaan oo kale oo ka qayb qaadan karo oosan ogeyn inuu A level inuu wato oo oosan rabin ama hadduu A level intuu dhameeyay jaamacad oo rabin inuu aado marka jagada looga bilaabay waxay ku xiran tahay buundooyinka oo keenay jagooyinka oo keenay hadduu A level dhameeyay meel sare aga bilaabayaan haddii GCSE kaliya oo dhameeyay GCSE-giisana C iyo wixii ka sareeya loo baahan yahay grade C iyo wixii ka sareeyo qaarna dadka qaataa jiraan oo grade C hadduu ka hooseeyo meelo shaqooyin laga qaato way jiraan ilmaha yaan niyada laga jabinin aabba iyo hooyo sidaa u dhantihiin geeya meelahanaytooda kana London haddaa deganta meelo badan waaye TFL-ka oo London oo kale ay level 3 leadership waxyaabo badan iyo management apprenticeship marka ma yaro waxyaabahanaytood fadlan waxaa yeeshaan ilmaha la geeyo ay dad dhalinyaro ah waaweyn jiraan wiilal ama gabdho waaweyn jiraan oo waxay qabtaan aanan aqoonin waxyaabahan oo kale shaqo waa shaqo ayagoo shaqeynaayo lacag yar la siinaa baas ku filan meelaha ay baabuurka u raacayaan iyo waxyaabahaasaytood marka insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana inaad ilmaha u faa'iideysaan hooyo iyo aabba ilmaha gacanta ka qabataan aad geysaan meelahan waxaa waaye soo bixi dad shaqaale camal ay noqonayaan salaad shaqaalahaas meesha la galayaan shaqay qabanayaan shaqadooda way ka soo baxaan sanad 2 sano inta tababarka ay ku qaadato meelahan kaliya ma way badan tahay waxa inta lagu soo qoray kaliya ma ahan marka ilmo waxaa jiro ama dhalinyaro jirto oo waxay qabtaan aanba aqooninba iyaga aan ra'yi haysanin marka hooyo inay u ra'yiyeyso waa aabba ra'yi inuu siiyo waa ilmahaas oo kale gacanta ka qabta ilmaha wada fadlan meel alla meesha joogtaan soo dhawaada salaamu calaykum dhamaantiin baqeer badan idin rajeynaya insha Allah salaamu calaykum